wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceergaabo waxaana wasiirka safarkiisan ku wehelinayay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland maareeyaha wadooyinka Soomaaliland maareeyaha ku-xigeenka iyo guddida qaadaan ururinta dhismaha wadada Ceergaabo ee heer qaran waxaana wafdigan uu hogaaminayo wasiirka galbeedka magaalada Ceergaabo kaga hortagay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Ceergaabo xildhibaano madax dhaqameed kala duwan haween iyo dadweyne aad u tiro badan kadib markii wafdadina soo gaadheen madasha soo dhaweynta waxay mid u gacan qaadeen mas'uuliyiintii iyo dadweynihii kale ee soo dhaweynteeda u taagnaa ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxayna soo gaadhay wafdi heer qaran ah oo hogaaminayo Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan loo yaqaan wasiirka hawlaha guud waxa kale oo la socda xildhibaanadii qaranka waxa kale oo la socda madax fara badan waxa kale oo la socda guddidii wadooyinka waxaan ku leenahay Saacad Wasiir soo dhawow Saacad Wasiir Ceergaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag tan maanta gobolka Sanaag waa gobol ammaan ah runtii mashaariic fara badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ka qabtay ay ka socdaan wadada ugu qiimaha badan ama mashruuca ugu qiimaha badan dalka uguna qaalisan waa wadada aynu maanta taaganahay wadada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer waxayna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin xildhibaano madax dhaqameed iyo dadweyne tiro badan kuwaas oo dhamaantood wasiirka iyo wafdigiisa u sheegay inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin dhamaystirka wadadani wadana wasiir waxaad arkaysaa ummadii reer Ceergaabo oo ilaa iyo magaalada dhexdeeda aynu gaarayno saf aad meel ugu tagi doonto waxaanu leenahay waa kula shaqaynaynaa waxay intii aanu qaban jiray in ka badan baan si laabi doonaa waa ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol wixii warbixinaha waxa dhiibay gudoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wadada aynu aragno oo muddo badan hadda soo socotay runtii way ahayd waanay soo shaqaynay innaga iyo asxaabtii hore ee tagtay ee ka shaqaynaysay wadada waxaan rajaynaynaa halkii ay hore uga socotay inay ka laami doonto waxaanu diyaar u nahay wixii ku xiran wadada ee dhinacayaga reer Ceergaabana waxaan leenahay Cali weyna la jooga kastaaba ha hadle na hawsha markii hore wuu igbalay mastar xirsi oo si fiican u dhaqaajiyay adigana waxaanu ka codsananaa indhaha iyagu waxay ku shidan yihiin oo eegayaan oo habeen iyo maalin aanu ku haynaa wasiirka wadada loo dhiibay iminka iyo sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha wadooyinka Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo injineerka gacanta ku haya dhismaha wadadan Sanaag iyo Togdheer kale waxaan leenahay reer Ceergaabo iyadoo laga dambeyn doono ballanta qaadeen kamaynu soo bixin taaydi waan ka soo baxnay tii madaxweynaha ka soo baxnay hawl weyn ku maqan yihiin 89 finalki dhiman yahay iyo 26 daamurkii iyo finalki u dhan marka xagga Ceergaabo laga bilaabo xagga kalena waxa laga soo bilaabo sidoo sheegay 10 hore u yaaleen 15 hadda la bilaabo daamurkiisteeda marka imka tay noo hadhay waa shaqadii cuslayd shaqada culus marka lagu celiyo 9 kilomitir hal leeyro complete la dul dhigo 3 sentiya ayaa dib haddana waxa loogu bilaabayaa buuxin dambe wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa shacabka reer Sanaag u sheegay in bisha 12 sanada soo socotay 2016 ay dhamaystiri doonaan wadadan wixii dhiirigelina iyo wixii nafurida iyo wixii dhaqaale bixinaba kala soo qayb qaata waayo wadooyinka la wada waa badan yihiin wasaaradda hawlaha guud iyo hay'adda wadooyinku ay ka mas'uulka yihiin haddii wadada Ceergaabo nafta la dul dhigo deedunkuna nafta nala dul dhigo wadooyinka yaryar ee gaagaaban sanadka soo socda dib ha naloo ku dhigo targetka iyaguna waxa weeye insha Allah taala in wadadaas December 2016 insha Allah ay naga soo gabagabo intaasi kadibna waxa wafdidan uu hogaaminayo wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Soomaaliland loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Hadwanaag News magaalada Ceergaabo